ku soo dhawaada makeup-ka Marin Axmedey maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo lashes-ka sida loo xiranayo. Lashes-ka waxay qayb weyn ka tahay qurxinta. Waxa muhiim ah inaad baratid sida quruxdaada u ziyaadin lahayd. Waxaan soo qabaday lashes-ka. Waxaan rabaa inaan isticmaalo lashes-ka qalanjo. Tartiib u soo bixi ilaali lashes-ka haddii geeskaas ka qabatid. lashes-ka geesaha inay ka foqaan dhici karto. tartiib fartaada isticmaal saas u soo jiid. hubi lashes-ka inay saasaan u baxaan ma loo baahna. indhahaaga inay la wareeg ahaadaan saas yeel indhaha saas u wareeji. indhaha inta aad lashes-ka ku dhijinin mari mascara walba isticmaali kartaa. isticmaal geedkan markaa ku dhijinaysid hoos fiiri. hubi in lashes-ka ku dhigan yihiin. haddana waxaan isticmaalaynaa mascara si isku bahlasha iyo lashes-ka isku darsamaan lashes-kaaga. different weyn u dhaxeeya labadan. haddana waxaan rabaa inaan isticmaalo tan kale. markaan ku dhijinaysid hoos fiiri. si fiican u hubso inay lashes-ka ku dhigan yihiin. haddana waxaan isticmaalaynaa mascara-ha. mari lashes-kan waxaa isticmaali kartaa muddo badan. meel waa dhigan kartaa waqtiyaal badanaa isticmaali kartaa mar kasto.
haddana mascara waxaa marinaynaa indhaha hoose. way kana lasheski markii koo iyo hadda different wayna u dhaxeeyo. haddaad waxaa isticmaali kartaa haddaad rabtid birtan haddii gacmaha ku dhibayso indhahaaga haddii yaryar yihiin waxaa samayn kartaa lasheska waa jari kartaa. laakiin lasheska aan qof walba isticmaali karaa waa mid normal ah oo khafiif ah oo aan ku dhibaynin. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidaan. waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. salaam.